ii samee thumbnailka ugu qurux badan in abid arko. waxaan soo helay AI tool cajiib ah oo kuu sameynaya thumbnails waali ah oo aad kaga maarmi karto designerskii iyo waxyaabihii badnaa ee waqtiga kaa luminayay ee ayguna 100% waa free. toolkani waana mid kuu sahlaya inaad samayso thumbnails indhaha soo jiidanaya daawadayaal badanna ku soo jiidan karto. haddii aad rabto promptiga saxda ah u adeegsaday commenti ku soo qor prompti aniga ayaa ku soo dirayay. saan u sameyno waxaan raaci doonaa 3 tallaabo oo muhiim ah nala joogi lahayd dhamaadka muuqaalka. talaabada ugu horeysa waxaan u baahanahay fikrad. marka ugu horeysa waxaan tagi doonaa Pinterest ama YouTube kadibna thumbnails baan ku qori doonaa ka ku cajabiyay aad markaa soo degsan doontaa. hadda anigu waxaan sameyn doonaa inaan markaa recreate ku sameeyo thumbnails kamid ah thumbnailada masterpiece. kadibna waxa aan sameyn doonaa inaan 3 dhibcood ku dhufto copy linkina ku dhufto. tallaabadii koobaad taas inaga soo dhamaatay. ma tahay graphic designer, video editor ama content creator, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho adeegyada bixisa Alpha Digital. waxaad ka helaysaa Alpha Digital adeegyada Infante Elements, Storyblocks, Adobe Creative Cloud oo ah kuwii rasmiga ahaa ma ahan karaag. waxaana kuula socdaa AI Features iyo 100GB oo cloud storage ah, Canva Pro iyo CapCut Pro iyo ChatGPT 4. haddaad u baahan tahay faahfaahin dheeriya kala xiriir description-ka yaala. okay, hanu tagna tallaabada labaad. waxa aan sameyn doonaa inaan sawirkii aan soo qaadano aan ChatGPT gelino kadibna waxaan furan doonaa ChatGPT calaamadda plus ayaan ku dhufan doonaa. sawirkii ayaan markaa ku xareyn doonaa waxaana ku qori doonaa promptiga aan kugu soo qori doono commentiga. waa haddaad commentiga prompti ku soo qorto like-na aad saarto. okay, waxuu inoo soo saari doonaa qoraalkan dheer ayuu inoo soo saari doonaa. kadibna qoraalkan baan koobiyin doonaa. markaan koobiyino waxaan soo furan doonaa browserkeena waxaana ku qori doonaa website-kan loo yaqaano Ideogram. kadibna waxaad gashan doontaa Gmail-kaaga. markaad Gmail-kaaga gashato calaamadda plus ayaad ku dhufan doontaa. halkan ayaad ku bastigarayn doontaa promptigaad soo qaadatay. kadibna waxaad sameyn doontaa inaad si text-kan hagaajino. dhinaca waxaan ka dhigi doonaa realistic, dhinaca kalena waxaan ka dhigi doonaa cabirka YouTube-ka. kadibna waxaan ku dhufan doonaa generate. bal waxaan sugi doonaa waxa uu inoo soo saaro ee ayagu 2000 years later. wow, waxuu inoo soo saaray 4 sawir oo cajiib ah oo mid kasta midka kale ka daran yahay. markaa ka cajabiya ayaa dooran doontaa. okay, waxaan ku sameyn doonaa markaa thumbnail labaad. anigu waxay diyaarsan promptigan kadibna kuu bayaan soo oran doonaa. kadibna meeshii kale ayaan besti ku oran doonaa. waxaan sugi doonaa waxoogaa yar si inoogu soo saaro bal sawiraanta uu sameeyey. A few moments later. wow, waxa uu sameeyey sawiraan cajiib ah. okay, waxaan doonayaa inaan sawiraanta mid kamid ah wajiga ku bedesho. waxaan tagi doonaa website-kan. marka website-kan tago dhinacan ayaad gashan doontaa thumbnailkii, dhinacan kalena waxaad gelin doontaa sawirkaagii. kadibna waxaad ku dhufan doontaa dhinacan waxoogaa yar baad sugi doontaa. kadibna waxaa kuu soo saaray sawirkaagii sawir la mid ah 80%. okay saaxiibayaal, waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen maanta muuqaalkeenan gaaban. marka ha ilaawina like, share iyo subscribe. commentigana noogu soo qor hadal dhiirigelin ah saan u soo badana muuqaalada insha Allah taala.